idinku waxaad ka dhigaysaan magaca Gabooyacayn laakiin magaca Gabooyacayn ma aha. hadalkaasi difaac ah ee fanaanada Nimca Habi aad ayaan ugu farxay sababtoo ah Gabooye waa qabiil Soomaaliyeed oo sharaf leh in la aflagaadeeyana ma mudna xasha lilaahi laakiin gadaal ayay u ciyaartay ayada oo qabiil difaacayso ayay qabiil kala bahdishay aflagaada cad ayay fanaanadu u geysatay beesha jareer weyne oo kamida bilaha sumcadda iyo sharafka leh ee Soomaaliyeed jareer si halka joogo oo Soomaali ah oo ku diin ah siyaabo kala duwan ayaa muuqaalkan looga falceliyay laakiin xaqiiqada jirta ayaan rabaa inaan isdul taago aniga oo dhinacna markaasi riixin dhinacna markaasi aan u badan salaamullaahi calaykum saaxiibayaal kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada waa tabliiqa baraha bulshada walaalkiin Cabdulcasiis Riyali oo mar kale idin aad ayaan ugu faraxsanahay idinkoo caafimaad qaba iyo anigoo caafimaad qaba in halkan aan isugu soo laabano oo xog kale aan isweydaarsano saaxiibada aan jecelahay haddii aad igu cusub tihiin qaarkiin waxaan ka codsanayaa in ay channel ku soo biiraan oo ay subscribe dhahan kadibna muuqaalka ay markaasi like ku qabtaan gambalaalkan ay furtaan haddii Facebook page kaga la socdaan follow iyo like labaduba waan u baahanahay haddii aad tahay saaxiibkii hore ila joogay waxaan ku weydiinayaa male waxaan rabaa inaan fariin u diro Facebook pages badan oo muuqaaladeeda qaata muuqaaladeeda copyright ku xiran laakiin mostly waa iska daaya waa dacway kara waa ku qaban kara laakiin mostly waa iska daaya talada aan u sheegayo waxay tahay muuqaaladayda Facebook lagala dago culays badan ma keenayaan waa degsan kartaan laakiin muuqaal YouTube-ka ku jira haddii aad degsato aniga aan Facebook soo galin saameyn uu kugu yeelan karaa mustari muuqaalka marka Facebook la keenay kadib iska qaado haddii kale hadhow qof xun ay fahmin haddii YouTube-ka ka degsato oo dhibaato ay kugu dhacdo page-kaagana cilad ay ku timaado inkastoo aan dhalinyaro fara badan oo muuqaaladeeda qaataan iska dhaafo waayahay haddii aan u soo noqdo dulucda ujeedada amba geedi socodka muuqaalka maanta aan rabo inaan ka falceliyo waa muuqaal gabar Soomaaliyeed oo fanaanada ay ku difaacaysay beesha Gabooye oo kamida beelaha anigu aan jeclahay laakiin qaabka ay u jawaabaysay amba u falcelinaysay buuq kale uu ka dhashay muuqaalkaas ayaan rabaa inaan isla wada daawano oo aan isla eegno muuqaalkan markiis hore wuxuu ka bilowday gabadhan oo ka hadashay weerar dhanka social media oo lagu qaaday fanaanad Soomaaliyeed aan jeclahay oo lagu magacaabo Nadiir Nayrus muuqaalka aynu daawano waxaa jirtay arrin aan shalay ka hadlay صح arrin aan shalay ka hadlay baa jirtay oo Nadiir ahayd arrintii Nadiir arrinteeda iska taakiliyay fabrigayga dhan wixii laga sheego waa ka soo hadlooyaa una sheegaa in shalay markaan soo dhigay ilaa xalay ilaa kalluumadii shalay ilaa saaka waan isoomaay loo qaaday soo adiga Gabooye ma tahay Nadiir Gabooye waaye baqbaqsan waaye waraadaya Gabooye muxuu yahay ma dadku culaa ma bahalba ma cudur dadka gala soo qabiil Soomaaliyeed oo meel degan oo magac iyo maamuus sharaf leh sheekh ya shariif la Soomaaliya صح تصاص معها كنت وايا بس ما غلطانه صح انت Gabooye magac مقام شرف اسي كرام شيخ شريف تبولي شنطة كامل قبسين يحي صح وكان تبدي يحي صح وكان شق بدي يحي صح وكان دقاق بدي يحي صح هي ضد كورمي اوكي قلت الحمد لله هذا قلت المعنتين واذا انا قلت المعنى اثيوبيان iyo isha xaldahay Masai وكي dhinac ka degan Masai Soomaalida oo eg ya iyo qolo kay ka degto la dhirindilo Soomaalida oo eg dadana ugu tilmaamay alxamdulillah rabbil alamin qolo Soomaaliyeed Soomaalida ugu tilmaamay صح okay ka gud idinku waxaad ka dhigaysaan magaca Gabooyacayn laakiin magaca Gabooyacayn ma aha صح والله صحيح مدقان باتا مدقان نتغنى قف كان صدقة بحسن
qofkaan isagada baxsanin runteed qofkaan salaada tukanin runteed qofkaan shanta arkaan islaamka aan gudin run midkaan qofkaan aakhiro u shaqaysan midgaan صح واحد qofka jannada laga waaya midgaan qofka waalidkiisa caasi ku aba midgaan ma maqlaysaa qofka maxaa ku raday ehel iyo qaraabo aan u roonayn baa midgaan aabeen kala qabsaday wariyaale bisma khlayna tayda haddaan ka hadlo qabiilkaaga soo sheeg anigu qabiil malihi horta maxaa Soomaalidu waxaan la yaabay maxay ugu cararaan qofka markay bartaan qabiilkiisa qabiilkaaga sheeg yaa tahay qabiilkee tahay war qabiil macna ma sameeyay qofkan hadii aad ka hesho jeceshahay oo friends la taa amba ku xiran tahay waa ku xiran tahay waxa macna qabiil ku sameeyay male qofkii ku qanciyo oo maarata dibacad fahanto oo aad sheeka fahanto amba aad ka hesho dhaqankiisa ayaa qofkaaga ah qabiil macna oo sameeyay male qabiilna waa tiin qofku waa Soomaali gabar Soomaaliyeed baan ahay alxamdulillah Soomaalinimada iga badan runtii intaas ay ku filan caqligiina xoogaa waxaad u malaysaa inuu isqaamay alla Soomaaliya waa intee la idin geynaa intee u socotiin ya intee u socotiin iga dabageeya meesha u socotiin ishaa شاحة كل شيء يا إلهي كعبسة يا حني وقتوني وقب ولا جيت ويا ولا دقالك استحالة دون قبلها حمو جديد واسكت درميسين دقالك استحالة دون كاسو وقتي عيد اللعبة يا سودو وقتي عيد اللعبة يا سودو برادر اند سيستر إلهك فاهم ذكر انت انا افكر نوسو تاجيسان انت تسو تغتان maxaan ku tilmaama inta soo tagtaan wadinka gabdhihii wiilashii ilaahay habla gabooyo waa nice soo sheeg waxa midgaaya jareersin ku halkaa joogo on Soomaali ah on kugu diin ah on kugu dhaqan ah on kugu isha maxaa dhahay tafiir ah gabdhaheenooda guursaday gabadhan meesha qalad uga shay jareer aan Soomaali ahayn ma bajiraw jareer waa qabiil Soomaaliyeed oo jareer weyn la yiraahdo oo sharaf leh oo Soomaaliya sida gabooyaha aad difaacayso ayaguna waxay yihiin qabiil mudan in la difaaco hadii lagu xad gudbo inta aad sheegtay leeyihiin oo shiiqay leeyihiin oo shariifay leeyihiin oo wax walba leeyihiin way ka hoos baxdatan waxaan dareemayaa inaadan xumaan kala jeedin oo aad markaasi tusaale soo qaadanaysay laakiin adoo qabiil liiditaan u diidayo inaad tusaale xun qabiil kale u soo qaadato oo kugu ceeb hadalkaas raadigelinka bixi ka codsan lahaa sababtoo ah marka muuqaalkan uu soo baxay dad fara badan oo qabiilkan